wasaaraddan markii la fiiriyo 3 sano waxay isdhihi karnaa waxa ay qabatay ama u qabsoomay waxay ka dadaal badneed wasaarado ka miisaaniyada waaweyn ama ka miisaaniyad culus ayay ka wax qabad badneed aan dhihi karaa sababteeda marka waxay tahay dhalinyaradan haysanay Soomaaliyeed kuwa wasaaradda jooga iyo kuwa kale volunteerismka nagula shaqeynaya tusaale haddaan idin sheego siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee muddada 2023 to 2030 7 sano duleerada wasaaraddu ay ku shaqeyn doonto udub dhaxaadka ah 10 tiiro muhiim u ah wasaaraddu ay mataqaanaa ku qoran tahay saas si lamida istiraatiijiyadda qaran ee wasaaraddu 5 sano soo socota ay ku shaqeyn doonto dhammaanteed marka loo barbardhigo wasaaradaha dhigeena dhaqaalaha ay ku bixiyaan waa la yaqaanaa waa $100,000 laakiin nasiib wanaag wasaaradda dhalinyaradu waxay ku diyaarisay noogu qabsoontay $1 ayadoo nooga bixin oo aan kaalmo shaqeeyay $1 miisaaniyad weyn ahayd dhalinyarada Soomaaliyeed ee aqoon-yahanada iyo kuwan wasaaradda ugu nimid ayaa si volunteerism mutadawacnimo ah xoogooda waqtigooda ku bixiyay taas ay ku qabsoontay waana uga mahadcelinayaa ayadoo waxay ahayd runtii waxa aan ku faani karno kaliya wasaaraddan ma haysato maxaa la dhahaa wax la yiraahdo hadii la dhaho miisaaniyad waxa looga hadlaa wax lagu howlgeliyo runtii waxa ay haysato resource-ka iyo waxay soo saarayso waxa badan waxay soo saarayso waxayna ku suura gashay dhalinyaradaas volunteerismka ee garab iyo gaashaan waa wasaaraddan leen waa mahadsantiin mudanayaasha sharafta leh wasaaraddu maanta aan wareejinayo sida caadiga ah xilka dawladeed waxa waaye sunnadiisa waxay ka mid tahay qor isku dhiib inuu noqdo maalin kasta meel ay joogtaan anigu shalay waxaan kala wareegay wasiiro waa lagu wareejiyay waxaan aaminsanahay inaan soo gaarsiiyey meel maanta wasiirada igala wareegayo ay kasii qaadi karaan marka sunnada dawladeed ee xilka ah in mataqaanaa la kala wareego waxay qayb weyn ka tahay horumarka geedi socodka dawladnimada intaas markaan uga gudbo wasaaraddu waxay mataqaanaa hadda base u ah ee ku shaqeysaa xaruntan ku-meel gaarka باذن الله تعالى waxaan rajeynaynaa nasiib u yeelanayo wasiir maxamed cabdiqaadir iyo wasiir dahabo wasaaradda xarunteeda inay dhawaan hirgasho saan rajeynayna qorshaha loo ahaa qorshaha aan u bees gareynana sanadkan dabiiqadiisaba inay wasaaradda xarunteeda ku shaqeyso sida qorshuhu ahaana qorshihiisa soo dhameystirmay in la dhex dhigo bartamaha bisha May ama maalinta dhalinyarada in lagu aadiyo waxaan nasiib u yeelan doonaa inuu geedigaas meesha ka sii wado annaguna garab iyo gaashaan aan kula noqon doonaa hogaanka cusub wasiir maxamed iyo wasiir dahabo aan dhihi doonaa nasiib iyo qaboonta wasaaraddu mudanayaasha sharafta leh waxa ugu weyn maxaa la dhahay ku tiirsaneed markii laga yimaado shaqaalahaas khubarada aqoonta ee waaye aragada agaasimayaasha iyo howlwadeenada waxaa jirta ururo dhalinyaro markii laga yimaado bahal sportska ururo dhalinyaro oo intaan hadda joognay noo suura gashay inaan dhisno ugu weyn yahay ururka ama xarunta dhexe dhalinyarada Soomaaliyeed Somali Youth Hub saasi lamida ururka dhalinyarada horseedka qaranka ama wax loo yiraahdo Boy Scouts ama xarakatul kashaafa la yiraahdo oo sida mutadawacnimada wasaaraddu mar walba u garab istaaga munaasabadaha mar walba ay qabaan saasi lamida waxa la inoo qabsoomay kamid ahaa ururka waxaan noo suura galiyay inaan iskaashiga aqoon-yahanada wasaaraddu ilaahay noogu suura galiyay in la dhiso golaha dhalinyarada qaranka kiisi ugu macnaha badnaa oo aan rajeynayno insha Allah 2 sano soo socota dhalinyarada Soomaaliyeed inuu ku hogaamiyo si wanaagsan intaas markaan uga baxo wasaaradda obolkeeda waxaan rabaa maanta inaan mudane rajaal halkaan aan mataqaanaa ku wareejiyo wasaaraddaas ee laga soo sheekeeyay wasaaradda dadka aan ka tagaayo iyo dhalinyaradu sida wasiir jaaga sheego waaye waxay ahaayeen dadaan saaxiibo dhow ahayn isku faraxsaneen runtii waxaan waa inaan u caddeeyo idinkama tagin weli waxaan idinka ahay qayb hadduu la yiraahdo wasaaraddu waa garab istaagi doonaa waxaan insha Allah ku garab istaagi doonaa wasaaraddu inay noqoto wasaarad macno leh wasaarad mug iyo qiimo leh hesha xuquuq ay wasaaraddu ku hesho fursad u hesho inay dhalinyarada ugu adeegto hadduu la yiraahdo